bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa aljeeriya oo 4 qof ay ku dhimatay kadib dab ka kacay keymaha bariga dalkaas. sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa ra'iisul wasaaraha Giriiga oo raaligelin ka bixiyay guuldarooyin dhanka dabdamiska iyadoo dab weyn uu weli ka sii ololaya jasiiradda Evia. ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. dab weyn ayaa ka kacay keymaha Tizi Ouzou bariga Aljeeriya taasoo sababtay dhimashada 4 qof. sarkaal maxalli ah ma uusan meesha ka saarin malawaalka faldambiyeedka ka dambeeya mas'uuliyiintu waxay la dagaalamayaan dab aad u far badan oo ka socda dhowr gobol. sarkaalka maamulka keymaha Tizi Ouzou Yuusuf Walad Mohamed ayaa idaacadda Aljeeriya u xaqiijiyay dhimashada 4 qof iyo dhaawacyo kale oo badan oo ay ku jiraan shaqaalaha dabdamiska taasoo ka dhalatay dabkii ka kacay keymaha magaalooyinka Beniani, Yakuraan, Azaaziqa iyo Afija, iyaga oo tilmaamaya in la daadgureeyay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Walad Mohamed ma uusan meesha ka saarin suurtagalnimada inuu jiro faldambiyeed ka dambeeya dabkan tirada badan iyo kuwa isku mar ah oo aan Tizi Ouzou hore loogu arkin, isagoo intaa ku daray in baaritaanada lagu ogaan doono cidda dhabta ah ee ka dambaysa. dhanka kale ilaalinta rayidka Aljeeriya ayaa ku dhawaaqday in kooxdeedu ay ka shaqeynayaan sidii loo damin lahaa 31 dab oo keymaha ah. waxay tilmaameen in dabka uu ka kacay keymaha 14 gobol oo badankoodu ku yaal bartamaha iyo bariga dalka oo ay ku jirto caasimadda Tizi Ouzou. iskuullada iyo hoteelada ayaa albaabada loo furay si loo caawiyo dadka ka soo barakacay deegaanada uu dabka ka kacay. sidaan oo kale bil ka hor dab ayaa ka kacay keymaha gobolka Khanshala ee waqooyi bari Aljeeriya wuxuuna dabku baabi'iyay dhowr hektar oo beero ah. weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni raadka dhacdooyinka, iminkana aanu u yara jaleecano dhanka iyo dalka Giriiga. boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ayaa la dagaalamaya dab xooggan oo qasbay kumanaan qof inay ka qaxaan guryahooda. sidoo kale waxaa ku basbeelay hanti aad u badan. Mitsotakis ayaa yidhi waanu dadaalnay intii awooddeena ah laakiin xaaladdu waxay u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa. qiiq aad u weyn ayaa weli ka soo baxaya jasiiradda Evia waqooyi bari ee caasimadda Athens kaasoo gubanaya muddo 7 ah. tiro guryo ah iyo 100 hektar oo keymo ah ayaa holcaya jasiiradda Evia duleedka caasimadda iyo qaybaha kale ee dalka Giriiga. boqolaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa lagu amray inay ka baxaan jasiiradda si ay uga badbaadaan dabka, laakiin qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa go'aansaday inay joogaan si ay u difaacaan hantidooda. waxaan si buuxda u fahmay xanuunka dadka aan isku dalka nahay oo aan arkay guryahoodii ama hantidoodii oo gubatay, ayuu Mitsotakis ku yidhi telefishinka qaranka ee dalka Giriiga. laakiin wuxuu intaasi ku daray in dalku uu wajahayo musiibo dabiici ah oo aan hore loo arag. carada dadweynaha ayaa sii kordhaysa kadib hoos u dhaca waxqabadka xukuumadda iyadoo ay jirto yaraanta muuqata ee dabdamiska. qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin muhiim ah oo sheegaysa in dhaqdhaqaaqa bini'aadamku uu ka dhigaya dhacdooyinka cimilada aadka u ba'an.